halkan waa isgoyska Soobe waa halka 14 bishan uu qaraxa ka dhacay dhismayaasha burburay waxa lagu daday qaar si aan aysan burburkooda uusan u muuqan jiingad balse dhismahan waa dhismaha Soobe oo magaca isgoyskan qaatay sidaad arkaysaan durba waxa ka bilowday dayactir oo waxa la isku dayayaa in sidiisii lagu soo celiyo halka waxa ka muuqanaya sidoo kale in iyana ay isku dayayaan dadkii guryahaas lahaa iyana ay dhismo bilaabeen oo durbaba ay isku dayayaan in nolosha ay caadi ku soo celiyaan kaliya ma aha ganacsatada waxa isku dayaya in ay soo celiyaan bilicda ama ay guryahoodii dib u dayactirtaan dawladda hoose ayaa bilowday in ay iyana laamiga oo dumay isla markaana go'ay oo bohol weyn ka samaysatay ay dib u dayactirto waxa gaadiidkan waxay isku dayayaan in ay si durba ah si degdeg ah ay u soo celiyaan oo ay laamigii sidii uu ahaa ay ku soo celiyaan halkan iyana waxa ka muuqanaya bisha cas Soomaaliya oo iyana ahayd in ay qayb weyn ka qaadato gargaarka gudaha ayaan u galeynaa balse waxa muuqata iska daa in iyada ay wax gargaartay in dhibaatada ugu weynba guryaha ay soo gaartay in ay ka mid yihiin halkan waa bisha cas gaadiidkaas waxay ahaayeen gaadiidkii halkan yaalay iyana waxa la isku dayayaa halkan oo muuqanaya in burburkan maadaama aan iminka la dayactiri karin la qariyo oo uusan u muuqanin marka wadada la furo gaadiidka iyo dadka maraya in ay arkaan sidoo kale halkan iyana waxa ka muuqanaya waa meel ahaan jirtay 14 bishan ka hor hotelkii Safari ee weynaa dadku ay deganaayeen isla markaana laga shaahi jiray waxa sidoo kale goobta si joogto ah u soo gaaraya mar walba mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo sida ay wax u socdaan iyo isku dayaya in ay ogaadaan wax walba oo halkan ka socdo iyo dhismahanna waxaad nagala socon kartaan BBC Somali